halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-keena xurka wararka ku soo dhawaada xogada hasoon iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobada barnaamijkan ay kugu soo gudbin doonana waxa ka mid noqonaya jidadka waaweyn ee Muqdisho maanta waa ay xiran yihiin waxaan lagu arkayaa ciidan aan horey loo arag. haddaba ciidankaasi maxaa ay qabanayaan? waxa kale oo barnaamijkeeda kugu soo gudbin doona howlgallo qorsheysan oo lagu burburiyay qaraxyadii ugu cusla ee kooxda Al-Shabaab. howlgalkaasi halkee ayuu ka dhacay? waxa kale oo barnaamijkan ku daawan doontaan qodobada ay isku hayaan Puntland iyo Soomaaliya وحسن الشيخ محمود iyo Daniye. qodobadaas oo kala dhigdhigan isla markaana falanqeyntooda wata ayaa qayb ka noqon doona. dawladuna digniin halis ah ayay soo saartay. haddaba maxay daaran digniintaas? soo dhawaada daawadayaan. haddii aad nagu cusubtana fadlan subscribe noo saar bartaan naga daawanaysa nuxurka wararka muuqaalkan saaxiibada la sii wadaag. qaybta hoose ee commentiga waxaad noogu reebtaa aragtidaada muhiimka ah. hagaag aynu ku bilowno. wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa xiran maanta iyada oo lagu arkayo ciidamo kala duwan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. ciidamadan oo wata gaadiid dagaal oo culus ayaa lagu arkayaa wadooyinka qaar isla markaana waxa ay ku jireen qaarkood baabuurta xabadu aysan karin ee beebayaasha loo yaqaano. arrintan ayaa waxay dadka shacabka ahi kaga gol leeyihiin in markaasi lagu baaro maadaama ay ka qayb galayaan kulan weyne uu qaban qaabiyay ama ay qaban qaabisay dawladda oo ka dhacaya garoonka Engineer Yariso X Konis ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. isoo baxan oo loogu magac daray kacdoonka ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in madaxda sare ee dalku ay kula hadlaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho si ay u dhiirigeliyaan howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab isla markaana ka soconaya qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda ayay u badan tahay inay ka qayb galaan. horey waxaa loogu amray shaqaalaha kala duwan ee dawladda in aysan ka baaqanin oo ay ka soo qayb galaan kulanka kacdoonka ah. waxaa sidoo kale dadka lagu wargeliyay in markaasi ay qabtaan ama markaasi ay soo qaataan calaman iyo sidoo kale boorar ay ku xardhan yihiin waxyaabo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. wadooyinkan xiran ee magaalada Muqdisho ayay dadka shacabka ay walaac ka muujinayaan inkasta oo la filanayo in saacadaha fooda inagu soo haya dib loo furo maadaama kaliya loo xiray kulankan ka dhacaya Muqdisho ama kacdoonkan isku soo baxayaan dadka rayidka ah ee magaalada Muqdisho ku nool madaxda sare ee dalka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda. arrimahan ayaa dhammaantood muujinaya in weli Muqdisho ay ka jirto xaalad amni oo aad u liidato. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay in markaasi uu dadka shacabka ahi ku boorinayo in ay dhexda u xirtaan la dagaalanka Al-Shabaab oo ay soo banbaxaan isla markaana baqdinta ay joojiyaan. hadba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa qiyaarteena sharafta lahayd. dhanka kalena ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa fuliyay howlgal qorsheysan oo markaasi ka dhan ah Al-Shabaab. wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolkaasi kaas oo lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. howlgalka ayaa waxaa lagu burburiyay 2 gaari oo laga soo buuxiyay qaraxyo sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada militariga ee howlgalkaasi horkacayay. saraakiisha ayaa sidoo kale tilmaamay inay Al-Shabaab uga daba tageen deegaanada miyiga ah isla markaana ay fashiliyeen weerarada qaraxyada ah oo lagu diyaarinayo halkaas kuwa ay sheegeen in ay la damacsanaayeen inay ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe qayb ka mid ah iyo gobolka Banaadir ee caasimadda ah. gawaarida qaraxyada laga soo raray ayay saraakiishu sheegeen in laga dhacay shacabka isla markaana ay kooxdu doonaysay in ay ku weeraraan isla dadka shacabka sida ay hadalka u dhigeen. sidoo kale waxay intaa ku dareen in ujeedku uu ahaa in weeraradan qaraxyada ah ay la beegsadaan goobaha dadku ay ku badan yihiin balse ay ka hortageen ciidanka oo helay xogta iyo dhagartaas la maleegayay. dhanka kale ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaas oo ay guulaha ka sheegteen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana lagu fashiliyay qaraxyo waaweyn oo Al-Shabaab ay doonaysay in ay ka soo maleegto gobolka Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay gobolada dalka Soomaaliya ee 99% laga saaray Al-Shabaab isla markaana uu ka hirgalay amarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo duulaankii uu cilaamiyay ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan Hirshabelle ayaa dhexda u xirtay in al-shabaab ay ka saaraan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo in muddo gacanta ay ku hayeen isla markaana ay haatan kala wareegaan. xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, waxaana agaarka degmada Balcad laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. al-shabaabkii halkaa ka barabaxay ayaa dhankooda lagu waramayaa in dhanka webiga ay ka tilaabeen isla markaana ay halkaa ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ciidan. dhanka kale ciidamadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee howlgalka furiyay isla markaana burburiyay gawaarida qaraxyada ee al-shabaab ayaa weli sii baacsanaya. al-shabaab ayaa inta badan weerar ka fulisay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ugu dambeeyay midkii maalmo ka hor ka dhacay deegaanka Hilowle Gaab oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda oo howlgalka gobolka ka socda ee Hirshabelle markaasi hogaaminayay. si kastaba al-shabaabka lagu jabiyay gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ku soo koobantay inay weerar gaadmo ah ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda isla markaana ay fuliso qaraxyo sida uu hore u sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan. Cali Jayte ayaa sheegay in al-shabaab markan dagaalkoodu uu noqday mid markaasi cabsi ama keeb ku aruur ah oo markaasi ay ku soo goobmeen weerar gaadmo iyo qaraxyo oo kaliya. geesta kalena maamulka Puntland ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in maamulku uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan oo markaasi inta kale ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka go'day inta laga dhameystiray dastuurka meelgaarka ee Soomaaliya, iyadoo oo hanaanka dhamaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. go-aanka ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyada oo raacaysa qodobo ka mid ah dastuurka federaalka iyo kan Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto waxyaabaha iyadu doonto heshiisyo dowlad-dhiskan iyadoo ay kaligeed geli karayso. si gaar ah waxaa bayaanka Puntland lagu cadeeyay in ay danaynayaan ka qayb qaadashada dhamaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga sida awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaagga kheyraadka iyo deeqaha caalamiga ah ee Soomaaliya loogu talagalay. Dr. Afyare Cilmi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo la hadlay laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in go-aanka Puntland uu ka dhashay in markii horeba ay Soomaalida go-aan u gaareen koox yar oo qol hoostiis soo xiratay. wuxuu sheegay in markii laga soo tago go-aanka Puntland aysan gebi ahaanba sax ahayn in golaha wada tashiga qaran ay qodobo go-aan uga gaaraan masiirka dalka, iyagoo madaxdii timaadaba qalqal gelinaya isla markaana isku dayay in ay afduubtaan ama ay cadajuubaan, taas oo sheegay in ay tahay mid aan macquul ahayn. aniga waxaa ila quman in sida adduunku u maamulo ay Soomaalidu isku maamusho oo wax dhisato. waa in la sameeyo guddi dejiye qorshe qaran oo Soomaalidu ay isku maamuli karto 100 sano ee soo socota, ayuu Afyare. Afyare ayaa soo jeediyay in go-aankan ka gaaridda masiirka ummadda Soomaaliya aysan isku koobin karin madaxda maamulada iyo dowladda dhexe oo khubaro aqoon u leh loo xil saaro dejinta shuruucda lagu maamulayo dalka. waxaa la isku hayo waa nooca ay noqonayso Soomaaliya ee federaalka ah. marka nuxurka warkan ka yimid Puntland halkaas ayuu ku biyo shubanayaan meeqaamka caasimadda Muqdisho, arrinta Somaliland, qaybsiga kheyraadka, doorka ay ku yeelanayaan maamulada qaybta ka ah dowladda federaalka oo aan kala cadeyn, ayuu sheegay Afyare inay keentay jahawareerka cusub ee mar walba curta. arrintu waxay ka cakiran tahay Soomaalida cusub ee la dhisayo, ma isku xaquuq ayaa la noqonayaa mise gobol gaar ah ayaa wax loo badi doonaa. markaan eegno Puntland iyo Soomaaliya arrimahaas ayaa aad looga doodaa. marka waxaaba qaldan in dhowr qof ay qol soo xirtaan oo go-aan ay ka gaaraan arrintaas. taas ayaa keentay in la ogaa waayo waxa isku khilaafaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland, ayuu yiri Dr. Cilmi Afyare. ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadku waxa ay mamnuucday sharoobooyin la sheegay in ganacsato ay si qaldan u soo geliyeen Muqdisho. baaritaan ay si wada jira u sameeyeen hay-adaha caafimaadka adduunka WHO iyo hay-adda maareynta dalka ee Uzbekistan ayaa lagu ogaaday in daawooyinkaas tayadooda hooseyso kuna jiraan xaddi badan oo kiimikis sun ah oo waxyeeleyn gaarsiin karta qofka jirkiisa, isla markaana loo baahan yahay in la kansalo. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya qaybta maareynta daawooyinka ayaa digniin culus ka soo saartay waxyeelada 2 daawo oo sharoobo ah oo markaasi ay soo kala saareen shirkado Soomaaliya daawooyin ku soo daadgureeyo lagana leeyahay wadanka Hindiya. sidoo kale wasaaradda ayaa amartay in dalka laga mamnuuco ganacsatada daawooyinkaas keenaya ama markaasi xabsiga loo taxaabo.
daawade halka aad nagala socoto waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saaro